السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan doonay insha Allah inaan shaqooyinkii aynu soo gali jirnay meelaha kala duwan inaan kula wadaago shaqo ka soo baxday dhowr shaqo ka soo baxay meelo kala duwan. meelaha waxaa kamid ah hay'adda qaramada midoobay loo yaqaano UNDSS baa kamid ah. waxay rabtaa qof ka shaqeeya waxa loo yaqaano Field of Security Coordination Officer oo multiple duty station oo Soomaaliya ah. meelaha qofkaasi xagga arrimaha security-ga iyo risk management-ka iyo security management-ka uu kaga hawlgeli doono waxaa kamid ah Baydhabo, Doolow, Kismaayo iyo Beledweyne. goboladaas iyo degmooyinkoodaas buu ka hawlgeli doonaa. booskana wuxuu xidhmaya 12 February buu xidhmaya insha Allah. therefore qofkii raba inuu xareysto qofkaas waa inuu fiican yahay security certified management haadayo xagga security waa inuu fiican yahay. masters ba xagga laga rabaa maxaa la yiraahdaa social maxaa la yiraahdaa dhinaca maxaa la yiraahdaa alaam salaam Muhammad. marka ka hadlana xagga aqoonta waa university degree baa laga rabaa ama advanced university degree xagga business-ka, public-ka, political science-ka, psychology-ga, criminal justice-ka, law-ga, international relations-ka, security management-ka. marka wax gaar loo sii qaatay oo gaar looga sarribaa SCP oo ah certified security certified program-ka gaar loogu sarribaa inuu qofkaas yeesho. arrin badan baa looga baahan yahay. qofkii kale fahmi kari mataa fahmaya linkigana insha Allah waan idin soo raacin doonaa video xagga hoose. hala xareysto waana by online maaha email u dirmaayo. shaqadan waa by online. shaqada kale aan rabo inaan halkan iyadana idinka sheego oo hay'adda loo yaqaano Action Against Hunger kilka shanaada Ethiopia waxay naadinaysaa base human resource management bay raadinaysaa. Ethiopia waa goday gobolka Soomaalida gobolada Soomaalida Ethiopia kilka shanaad. salarigiisa waa lagu soo qoray qofkaasi $117 buu qaadanaya. dumarkana waa la sii dhiirigelinaya inay soo apply gareeyaan khaasatan dumarka. waxyaabaha marka laga rabo position-ka waxaa kamid ah HR waa soo garan kartaa. HR qof walba garanaya. human resource management waxa inta badan related leeyahay shaqaalaha nidaamintiisa, ka warhayntiisa, faylashiisa, xulashadiisa waxaa soo dhan baa soo gelaya. waa qof leadership ah. waa marka qof ururka maxaa la hay'adda u profile garanaya human resource management. wuxuu ka masuul noqon doonaa qofkaasi monitoring-ka iyo analysis HR indicators-ka iyo duty station-ka markaa godaya. program manager-ka iyo dadka meesha jooga dhanna waa qofkaasi waa qof technically taageeri doona. waxyaabaha essential-ka u ah shaqada laga sii rabo waxaa kamid ah waa qofkan profile human resource to the Action Against Hunger office in goday. qofkaasi waa markaa waa supervise garanaya shaqooyinkan. marka waxyaabaha laga rabo dhan linkiska soo gelinaya oo qaran joog isku jira. kulli waajibaadkaas ka barbadan yahay waxyaabaha looga baahan yahay. waxyaaba badan waxaa ku jira physical management ku jira. waxaa laga rabaa masters ama degree baa laga rabaa xagga human resource-ka administration-ka fiilkaas. 5 to 7 years experience baa looga baahan yahay. waana meesha dhibaato ka dhacdo halkaa. waxaa kaloo la eegaya sidee loo apply gareeyaa shaqadan qaabka loo apply gareynayaa markaa qofkani shaqadan email lagu diri maayo, online lagu apply gareyn maayo. xafiisyada ay leedahay hay'addan Action Against Hunger Hargeysa ku yaala, Ethiopia ku yaala, Soomaaliya ku yaala, Puntland ku yaala. xafiisyadooda waxaad geenaysaa CV-gaaga cover letter-ka oo aad dusha kaga qortay base HR manager. dadka qaar baa shahaadadooda original iska raacaya
عدة واحد عدي قرارات الصوب بيسلوا علم معي فكان فضلا وين على أنت بدنا أقولان تكين سمر قاف شغل قاف ولا حرج كوبية ده سيرتيفيكيت كوبية راعي سنة بدنا بحي كوبية راعي يوحى كله بهاي هاي وحي ريفرنس ولا بهاي فكان مشوا ده حراه هيدا لو يقال أكتب إنجو عالمي أو فرنسيسة wuxuu rabaa isna admin iyo HR waa socdo qof kali wada qabanayo hargeysa laga rabaa xafiiskooda hargeysa ka rabaan markii hore waanigi sheegay HR ka de arrimaha shaqaalaha administration waa internal machine maxaa tula aqoon laga baahan yahay horta waxa laga baahan yahay aqoon ahaan waxa laga baahan yahay inaad la timaado leedahay haysta degree xagga human resource management ka iyo inaad ku soo shaqeysay labor law si balaas dad haysta weeyaan Microsoft Office kana taqaano strong personality organizational skills excellent verbal and written communication a good team player siyaabaha shaqadan ku xareyn karta waxa kamid ah oo qaabka isticmaalaysa email lagu dirayaa email ku wuxuu yaalaa shaqadan linkiga ku jira waxaana ugu dambeyn xareynaysa 20 February 5 galabnimo ay xareynaysa sida qorshu yahay shaqada kale aan ku dari karaa waxa weeyaan active waxa doonaysaa oo sidoo kale CCM CAM coordination committee management CCM-yadu waxyaabaha mid soo baxay marka meelaha IDB-da ama inta badan waxa jira cluster jira cluster xagga IDB-ga jira cluster dhinaca carruurta baa jira child protection cluster baa jira marka CCM-yada waxa loo yaqaano ayaa qof marka maxaa la yiraahdaa project assistant ka noqdo baahan yahay hargeysa active u baahan waxaa kamid mas'uuliyadda community outreach workers ka ayuu kamid noqonayaa waxyaabaha kale internal relations ka loo baahan project staff ka logistics ka HR deputy-ga external relations loo baahan kamid ah community governance structure ka management committee ga side improvement ka maxaa laga baahan yahay todoba objectives badan ma jira laga baahan yahay project-yada meesha ka socda inaad ka qayb qaadato implementation-kooda department ka qaadato laga baahan yahay HR system baa ku jira xitaa inaad iyo mainstream ka waxa loo yaqaano dadka naafada kale dadka laga tirada badan yahay marka university degree xagga humanities ka social studies ka other relevant degree baa laga baahan yahay 1 year experience baa laga baahan yahay sidoo kale experience in community service women empowerment youth activities protection distribution legislation waxaasna baa laga baahan yahay waa shaqo aad fudud xaqiiqatan fududahay sidoo kale garanaysaa waxa weeyaan sidii lagu leeyahay shanta galabnimo iyo 20 February CV-gaaga insha Allah ayaad maxaa la yiraahdaa aad ku diraysaa marka subject waxa ka CCM assistant hargeysa ee ku shaqo qoraysaa waa subject-ga email-ka aad ku qoraysaa dadka soo liiska baa la soo xiriiraya taasina wata dar al-shifa hospital baran qofkii caafimaad ku fiican oo qayb barano ama caadi ka dhow farmasiyaas baa markaasna shaqaale u baahan farmasiya ka banaan shuruudaha lagu doonayo waxa kamid ah shahaadad degree ama diploma la xidhiidha xagga booska shaqada uu codsanayo inuu leeyahay ugu yaraan 3 sano oo khibrad ah farmasiyaas baran ku yaala email-ka ayaa lagu soo hagaajinayaa email-kana ku qoran yahay COVID February baa ugu dambeyn garowe ayaa waxa laga baahan yahay ERD assistant baa laga baahan yahay oo garan kartaa oo ICRC baa baahan
shaqada ICR xafiis kada garowe ayaa waxay u baahan tahay ERD assistant bay u baahan tahay shaqada linkkeeda insha Allah xagga soo galeeyada shaqada lagu xariin maayo ba email iyo ba waqtoona laakiin hab online lagu buuxinayo insha Allah saqashu yahay marka insha Allah hala dadaalo qof walba ha dadaalo ha xareysto waxa kale idin sheegaya waana ayaan siinaya waanadaas waxa weeyaan intaad markaba akhrido shaqada ha kula boodin ha xareyn haddaad challenge ku jiro shaqada challenge haduu ku jiro waxaad 3-2 challenge qaado CV-ga dib u eeg shaqada dib u akhriso isla hubi waxa laga baahan yahay gartaada akhriso haddii xitaa rabto inaad smaqiiqdo aqal ku dar oo waxa laga rabo bal review garee maanta Google baa jira machine badan baa wax kala soo bixi karto meesha lagu jabay waa CV-yadu qofku CV uu diyaargareystay 5 sano iyo 4 sano 3 sano ka hor iyo 2 sano iyo bar ka hor diyaargareeyay uu iskala soo baxaya uu buuxinaya emailkii mee ay tusay indhaay saara uu soo gelinaya hadhowna looma soo jawaabayo maanta mid kala geli mid kala dir lama jawaabayo midna laga jawaabayo dadwada ay wadku cadaalad darana musmaasu badana waxaan yiraahdaa wadka cadaalad ma taalo boqol shaqan xariiqdii ma jawaabto wala soo jawaabaa boqolkiiba wala soo jawaabaa laakiin muhiimadu waxa weeye hortay 7 qof iyo 7 qof iyo 8 qof baa shortlist ka yimaadeen ila 7 qof ee shortlist ka yimaadaba lama wada doonayay maxaa kaaba lagu dari waayay kii la qaatay cadaalad daraba lagu qaataba laakiin haduu shortlist maxaa u haray halka maxaa soo gaadhay the problem is your CV the problem is you waa adiga dhibaatada bagarata marka itaanagu dadka inta badan waxa noo soo qoraa la soo weydiis su'aalaha qofka waxa ku dhaado ma shaqaad weedaha waxa ma jiraan ku dhaado waxba ii soo qoraan dad waxaan ku dhaabal CV-ga ay soo dir aan kula hubiyo laaga macluumaadkan ku dhaartay boqolkiiba 78 dadka CV-yadu waa very poor very low CV baxtaa xitaa iska dayna in shaqo lagu xareeyo xitaa CV baa lagu tilmaamo marka maxaa la yeelayaa isaas bal waxa intaan geedka tagin gartaada akhriso oo cidna hab laga deeynin salaadaada iska tuko iska cibaadeyso risqana waa halkiisa wixii Ilaahay ku qoray ku qoran haddii aad shaqo la'aan ku jirayso oo risqana Ilaahay meel ka biilinayo waad iska jiraysaa kaaga marka Ilaahay baa umadaha abuurtay qofkii inta ummad Ilaahay wax ugu dhiibay ka musmaasuqana wax xisaab akhro Ilaahay man xewan xarista marka insha Allah saan rajeenaya qofkii u baahan in CV-ga la hagaajiyo adeegyada oo maxtaan ugu hagaajinaa WhatsApp-ka uu igala soo xiriiri karaa insha Allah fariinta YouTube-ka insha Allah wax soo qori doono assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh